waxaa jiray dhalinyaro ah gabadh aan family nahay oo aad u fiican u guursaday markuu shukaansanayo qamiis iyo cimaamad wataa maxaadara u daaran maanta dhan suu fiican yahay wiilka waa yaabaysaa markuu guursaday usbuucii arooska ayagoo ku jiray meel isu raaceen markaasuu muusik u daaran watahay daawadayaal waxaan bilaabi doonaa barnaamij cusub oo ku saabsan amaba aad dhegeysan doontaan toddobaad walba barnaamijkan waa podcasti waxaana toddobaad walba idiin soo gudbin doona aniga oo Saddam Maxamed Sheekh Cabdullaahi ah iyo saaxiibkay Maxamed Faarax saaxiibka Maxamed Faarax iyo anigu waxaan si toddobaad walba si joogto ah idinku soo gudbin doonaa barnaamijyo kala duwan oo xiiso galiya toddobaadkan waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijka batroolka Soomaaliya la xiriira iyadoo maalintii shalay ahayd uu markaba soo gaaray magaalada Muqdisho waxaynu ka hadli doonaa markabkaasi waxyaalaha uu Soomaaliya ka qaban doono goorta uu shidaalka soo saari doono iyo sidoo kaleeto inta ay qaadan doonto shidaal intee leeg ayaa Soomaaliya ku jira dhammaan waxyaalahaas oo dhan ama macluumaadkaasi ayaa haatan barnaamijkeenan oo socon doona 30 daqiiqo uga bogan doontaan haddii aynu ku bilowno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu heliyaan madax ka tirsan dawladdiisa iyo madax ka socota dalka Turkiga oo hogaaminayo wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee Jamhuuriyadda Turkiga Dr. Alparslan Bayraktar ayaa galka dambe ee shalay ka qayb galay munaasabada ku saabsan soo dhaweynta markabka Orug Race ee hawlaha shidaalka saxminta ah u tagay Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ka hadlay munaasabada waxaana uu mahad celiyay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga iyo shacabkeeda waxaana uu sidoo kaleeto uu shacabka Soomaaliyeed ugu booriyay in ay ka faa'iideystaan kheyraadkooda waxaana isagoo hadlayay hadaladiisii uu ka mid ahaayeen amaba uu sheegay in Soomaalida ay u baahan tahay inay ka faa'iideysato fursadani haddaba markabkan oo la rumaysan yahay in uu baari doono amaba uu qorshaha u yimid ay tahay inuu baaro shidaalka Soomaaliya ayaa waxyaabaha u yimid waxaa ka mid ah amaba haddii aynu xogta oo dhammaystiran idiin soo bilowno Soomaaliya ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadkan 2024 ay bilowdo qodista ceelkii shidaalka ugu horeeyay ee dalka laga soo saaro iyo shirkadda qadaraska lagu siiyay oo durba bilowday inay astayso meesha ugu habboon ee laga soo saaro shidaalka meeshaasi oo ah xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ee ismaamul goboleedka Galmudug wasiirka batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa isugu sanadkan horaantiisa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dabayaaqada sanadkan la soo saari doono shidaalkii ugu horeeyay ee laga qodo gudaha Soomaaliya kaasoo la filayo inay noqoto ceelkii ciriinka ee ugu horeeyay ama shidaalkii ugu horeeyay ciriinka la soo saaray isla markaana tijaabo loo diri doono maxamed oo markaa fiirisid shidaalka Soomaaliya ku jira dad badan oo waxaa jira ka kala hadlay shidaalku inta uu dhan yahay iyo sidoo kale qaabka lagu soo saari karo khubro badan oo ka hadashay baa jirta wadankii ugu dambeeyay amaba muddada ugu fudud ku soo saaray waxa uu ahaa in sida la sheegay Ghana 6 sano gudahood bay ku soo saartay haddii aynu horta dadka intaynu u sii galagayn barnaamijkaasi haddii aynu usoo gabagabayno amaba u kormarno heshiisyada iyo sidoo kale xirmooyinka la filayo in shidaalka ku jiro Soomaaliya waxaa ku jira xirmooyin amaba horey loo qoondeeyay xirmooyinka haatan dawladda ay sheegtay inay diyaar yihiin waa 7 xirmo 3 xirmo oo Galmudug ku jira 2 xirmo oo Koonfur Galbeed iyo 2 xirmo oo Jubbaland goboleedka Puntland iyo sidoo kale Somaliland oo aysan dawladda isku fiicneen labadaba xirmooyin wali lagama soo saarin sidoo kale waxaa la sheegay in la qodi doono shidaalka ugu horeeya dhamaadka sanadkan isla markaana tijaabo loo diri doono haddii aynu fiirino haddaba heshiisyadii hore ay Soomaaliya la gashay dawladaha kala duwan 3 bishii June sanadka 2016 Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad oo ku saabsan tamarta iyo macdan qodista heshiiskaas waxa uu dhigayay ama oo dhan uu dhigay afgambi waxa la sheegay in heshiiskaasi uu dhicisoobay kadib afgambigii dhicisoobay ee la isku dayay in 15 bishii July 2016 dalka Turkiga uu ka dhaco hasaatee mar labaad ayaa si isafgarad yimid miiska ahmiyadda ee Turkiga kadib markii madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan uu baarlamaanka dalkaasi horgeeyay in ay meel mariyaan bilowga sanadkii 2020 madaxweynaha Turkiga maruu ka hadlay heshiiska xadeynta badda Liibiya iyo maraakiibta sahaminta ee Turkiga iyo bariga iyo Mediterranean-ka waxa uu sidoo kale markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay ku casuumtay Turkiga inay shidaal uu ka baarto isagoo oo markaasi ka soo noqday shir looga arrinsanayay xaaladda Liibiya oo ka dhacay Berlin haddaba heshiisyadii hore loo gadanaya waxaa kamid ah sanadkii 2022 dawladda Soomaaliya ay heshiis la gashay ama Paris la gashay shirkadda laga leeyahay dalka Mareykanka lagu magacaabo Coastline kaasi oo dhigayay in sahminta 7 ceel oo qodistooduna ay tahay in ay bilaabato 2025
heshiiskaasi oo muran dhaliyay oo uu saxiixay shirkadda wasiirka markaasi joogay cabdirashiid maxamed ayay ku gacan saartay dowladda Soomaaliya. madaxtooyada Soomaaliya ayaana markii warkaasi uu soo baahday ay soo saartay war-saxaafadeed lagu burinayo heshiiskii batroolka iyadoo xilli kala guur lagu jiray isla sanadkaas 2022 dowladda amaaniraha Somaliland ayaa heshiis la gashay shirkad shidaal oo laga leeyahay Taiwan oo saldhigeedu yahay London laguna magacaabo General Energy. heshiiskaasi ayay dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay sharci darro iyo inuu yahay mid waxba kama jiraan dalka Soomaaliya oo sahmin shidaal laga sameeyay tan iyo 1950kii ayaan wali wax shidaal laga soo saarin. hase ahaatee warbixinay dowladda Mareykanka dabacday ayaa Soomaaliya waxay ugu diyaaraan ay sheegtay inay haysato ugu yaraan 30 bilyan oo fusto oo kayd oo shidaal ah. shirkado badan sida Royal Dutch Shell iyo sidoo kale ExxonMobil oo Soomaaliya ka shaqeynayay ka hor dhicitaankii dowladda Soomaaliya ayaa iyaguna baaritaano sameeyay. dowladda Soomaaliya ayaa wareysi ay bixisay ku shaacisay in sanadkan dhamaadkiisa 2024 la soo saari doono shidaalka ugu horeeya ee Soomaaliya. wadamo badan ayaa loolan xoogan ugu jira ka faa'iideysiga shidaalka. mucaadada fiirsida hadda dowladda Soomaaliya waxay qorsheynaysaa inay soo saarto shidaalkaasi dadku siyaabo kala duwan ay uga hadlaan. horta si guud adigu sidee u aragtaa shidaalka iyo barnaamijkiisaas? horta hore maasha Allah saaxiib Saddam sida aad sheegtay marka wallahi horta hore haddii aan fiirno dhalinta Soomaalida iyo dhalinyarada da'deeda horta hore waxay noo tahay hope rajo iyo rajo note marka I hope inta isku wada imaan karno dhalinyarteena meeshan Kenya wax ku baratay iyo Uganda iyo meel walba joogaan qurbaha inay joogaan inta Soomaali u laaban karno oo insha Allah shaqooyin aan ka heli karno infrastructure fiican aan ka heli karno development fiican aan ka heli karno. marka maxaa ku weydiin rabay how long u malaynaysaa intee qaadan karto hope-kaasi intuu rumo? niyow rajadaasi inay rumowdo waqtiga ay qaadan doonto waxay ku xiran tahay sida shirkadaha soo saaraya iyo sida ay u helaan ceelka. caadiyan baaritaanka wuxuu ku saleysan yahay ceel la baarayo oo la soo saarayo. marka ugu horeysa shidaalka haddii markabka yimid hadduu baaritaan ku sameeyo waxay qaadanaysaa dhowr bilood 4 bilood 3 bilood ilaa 5 bilood deerto. kadib baaritaan baa loo dirayaa. baaritaankaasi sida khubarada hawlahan ku shuqul kale ay horeyba u shaaciyeen waxa ay qaadan kartaa 8 bilood ilaa iyo sanad. markaas kadib haddii tijaabada la soo noqdo aysan ay si sax ah wax u dhacaan markaas kadib ceelka la qodaya. ceelka haddii la qodo sifayntiisii waxyaalo badan baa iskor saaran. isku soo wada duuba waxaa la khubarada ay sheegaysaa in ay qaadan karto ilaa iyo 2030ka. sababtoo ah wadankii ugu fududaa sida ugu dhaqsiyaha badan shidaalka soo saaro wuxuu Ghana 6 sano ku soo saaray. sababtoo dhaqaale waaweyn baa ku baxaya. dhaqaalahaasna dowlad dhisan bay ahayd Ghana way isaga filnayd. sababo la xiriira dowladda Soomaaliya oo iyadu raadsanaysa dad ka caawiya ama dad maalgeliya waxaa laga yaabaa in inta ka badan ay qaadato. ugu dambeyn adoo khubaradu waxay sheegaysaa haddii si toos ah macnaha sida haatan wax u socdaanaysa waxba iska bedelin in 2030ka ilaa 2033 in lagu soo saari karo shidaal. haddii aan sii raaciyo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka hadlay in dalku ay ka faa'iideysan karaan dadku shidaalkana sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ay dadka loo soo saaro ay ka faa'iideysan karaan. waxa uu tusaale u soo qaatay inay jiraan dad ka faa'iideystay shidaalka oo iyagu soo saaray yani wadamada shidaalka laga soo saaray in dad ka faa'iideystay inay jiraan oo tusaale ahaan wadamo waxaa jira wadamada khaliijka oo kaleeto sida Imaaraadka Carabka Qatar Sacuudi way ka faa'iideysteen. wadamo waxaa jira Afrikaan ah oo ayagu soo saareen South Sudan kamid ah waxa kamid ah Nigeria Ghana shidaalka way soo saaraan iyagoo ceerin bay iibgayaan. wali laakiin waxaad moodaa dadkaas in aysan sidii laga rabay aysan qani u ahayn aysan qad u ahayn. maxaa u malaynaysaa marka maxaa keen karo intay dadkan ay ku qeyraadka haystaan sida carabta oo kale oo horumar u gaarin? niyahow waxaa jirta tan ugu muhiimsan waxa weeye waa madaxda. carabtu waxay fursad u heshay inay hesho madax fiican inkasta oo madaxdu ay ku xirnaan karto yani qofka sida uu markaasi u hogaamiyo dalka. haddana carabtu iyaga oo helay madax fiican yani madax aan iraahdo boqortooy ah oo aan dhicin
صح haddana sidii ugu habboonayd bay uga faa'iideeyeen dadkooda tusaale ahaan waxaa jira wadamada Afrikaanka inta badan madaxdu way isbedeshaa dowlad cusub baa dhalata dowlad cusub baa imaata hase haatee weli waxaad moodaa in aysan madaxdu sidii la rabay uga faa'iideynin dadka kheyraadkii dalka iyagoo qaarkood ay musuqmaasuq u sameynayaan waxaa jirta madax badan oo tusaale ahaan Nigeria oo kaleeto madax hore oo wadamada dibadda lagu xiray markay xilka ka degeen akoona laga xayiray ay bilimaad ku shubteen doolar la xariira ishadalka marka mar walba waxay ku xiran tahay hogaamiyaha ama madaxda xilligaasi waqtiga joogan si dadka uga faa'iideyn karto